xaalada ammaan darri ayaa saacadihii ugu dambeeyay ka jiray magaalada Muqdisho gaar ahaan waqooyiga magaalada degmooyin ay ka mid yihiin Yaaqshiid, Hiliwaa iyo degmooyin kale oo dhowr ah. Dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan amar ay soo rogtay waxay ganacsatada ku amartay inay xiraan kaamirooyinka wax duuba ama CCTV-da loo yaqaan. taa beddelkeeda waxaa amar kale ganacsatada siiyay xubno ka tirsan Al-Shabaab oo iyagu toddobaadkii hore ilaa iyo 3 qof oo ganacsato ah ku dilay xaafado ka mid ah degmada Yaaqshiid ee magaalada Muqdisho. cabsi lixaad leh ayaa soo food saartay ganacsatada qaarkood oo ay ku dhiiran waayeen inay diidaan amarka Al-Shabaab iyaga oo xiray goobahooda ganacsiga halka markaasi goobahaasi ganacsi la geeyay ciidamo dharcada oo iyaguna ganacsatada ku amraya in ay markaasi xirtaan kaamirooyinka sidoo kalena ay furaan dukaamadooda oo aysan albaabada isugu dhufan. dhinaca kale ciidamada dharcada ah ayaa yimaada aroor hore oo subaxnimadii ah iyaga oo habeenkii ka hoyaada halkaasi waxayna ganacsatada hadda wajahayaan laba daran mid dooro. ciidamada dawladdu waxay amar ku bixinayaan in ganacsi walba oo aan fulin amarka dawladda laga xiri doono goobtiisa ganacsi halka dagaalamayaasha Al-Shabaabna ay iyaguna nafta dhaafinayaan qof walba oo fuliya amarka dawladda ama ganacsigiisa shuruucda ay dawladdu u sameysay marsiya. ganacsada lagu magacaabo Gaagaale oo caan ka ahaa xaafad Tawfiiq ee Muqdisho ay kooxa bistoolada ku hubeysan dileen waxaana la tuhmayaa inay ahaayeen Al-Shabaab. sidoo kale waxaa jira ganacsato kale oo iyaguna isla suuqa Tawfiiq lagu dilay kuwa kalena waxaa lagu dilay qaybo ka mid ah Hiliwaa iyadoo oo dawladda Soomaaliya aysan la imaan wado kale oo shacabka naftooda ay ku badbaadinayso. dhinaca kale duleedka Muqdisho gaar ahaan deegaanka ceelasha biyaha ay dhacdo caynkan oo kale ah ka dhacday iyadoo ganacsiyada qaar la xiray ganacsatana la dilay. Al-Shabaab waxay xoog saarayaan inuu dhaqan galo amarkooda isla markaana dadka shacabka ay aad u cabsi geliyaan halka ciidamada dawladdu iyaguna ay ku adkeysanayaan awaamirtii ay soo saareen in ay markaas si khasab ah ku dhaqan galiyaan. shacabka caasimadda waxay ku jiraan laba daran mid dooro amarka dawladdu ma ay diidi karaan oo xabsi iyo xarig ay la kulmayaan kan Al-Shabaabna waa dil dhibaatadaas ayna wajahayaan. dhinaca kale Al-Shabaab 48 saacadood la soo dhaafay waxay hoobayaal ku tuureen qaybo ka mid ah xerada Xalane oo ah goobaha ammaankooda aadka loo ilaaliyo ay degan yihiin ajaanibta iyo sidoo kale dadka la shaqeeya ee ajnabiga ee dawladda Soomaaliya la shaqeeya. mar haddii Al-Shabaab awoodooda ay gaarsiisan tahay in ay duqeymo iyo sidoo kale weerar ka fuliyaan meel aan sidaas uga fogeyn madaarka caalamiga ee aadan cadde shacabkina ay wajahayaan xaalad amni darro dawladina ay ku khasbayso waxay shacabku quus ka taagan yihiin xaaladan inay ku sii jiraan. koox ka socotay telefishinka Kaab ayaa isku dayday arrintan in ay u koorgasho kana sameyso warbixin hase ahaatee ganacsatadu baqdin ay ka muujiyeen waa ayna diideen in ay nala hadlaan taa oo khasabtay in aan markaasi heli weyno codadka dadka shacabka ah ee labada dhinac u dhiban.